السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada Umar Mahmoud ashkan waxaynu ku arkaynaa tobankan erey meesha noo saaran ereyga koowaad insomnia waxaa la yiraahdaa hurdo la'aan yani waa xaalad qofka marka uu sariirta tago uusan hurdo isku arkayn insomnia mar qaar xitaa heer waxay gaartaa qofka uu dhakhtar aado oo daawooyin loo soo qoro yes insomnia made her tired during the day yani hurdo la'aanta habeenkii haysay darteed baa waxay ka dhigtay inay daalanaato maalintii oo idin because qofka haduusan habeenkii seexanaynin de maalinkan cajsi iyo daal baa ka muuqanaya ereyga labaad mode waa qaabka aad wax u samaysid waa method camal yes qaabka aad wax u samaysid the way you do things for example she explained the mode of operation for the machine waxay noo sharaxday qaabka uu mashiinkaas u shaqeeyo yes qaabka uu mashiinkaas shaqadiisa u qabsaday noo sharaxday ereyga saddexaad modesty waa qofka yani it's a quality by the way waa qofka yani quality uu leeyahay oo ah inuu ahaado qof isdhuldhigid badan aanan dadka istustusin yes dabeecadaas ama astaantaas waxaa la yiraahdaa modesty waxay isku micno yihiin humility qof isdhuldhigid badan dadka aanan istustusin yes ereyga afraad nappies waxaa la yiraahdaa xafaayada carruurta loo xiro diaper waa dhihi kartaa baby birds waa dhihi kartaa yes xafaayad carruurta loo xiro ee saysan isugu kaadin isugu saxroonin ayaa la yiraahdaa nappies diapers ay isku micno yihiin erey shanaad oblivion waa xaalad jahwareer ama xaalad ilowsha yes he drank himself into oblivion yani qamradu zaid u cabay heer uu galay xaalad uu waxba xasuusaninba yes oblivion marka xaalad jahwareerna waa dhihi kartaa xaalad yani qofkii inuu wax walba iloobana waa dhihi kartaa yes ereyga lixaad pelvis waxaa la yiraahdaa miskaha yes miskaha hoose ayaa la yiraahdaa pelvis the hip yes ereyga toddobaad papalexin waxaa waayo confusing waxaa markay ku wareerinayaan ee adag tahay inaad fahamtid ayaa la yiraahdaa papalexin yes for example it was a papalexin question waxay ahayd su'aal aan fahmi kari waayo yes ereyga siddeedaad pop round waa soo booqasho qofkii inaad soo booqatid ama aad kasoo duldhacdid ayaa la yiraahdaa pop round for example you can pop round any time of the day waqtigaad rabtid waad soo booqan kartaa ereyga sagaalaad portly waxaa la yiraahdaa qofka markuu yara cayilan yahay hilib yara saaran yahay chapin waa dhihi kartaa stoutna waa dhihi kartaa yes qofka markuu caati yahay slim ama slender ayaa la yiraahdaa ereyga ugu dambeeya tobanaad contest waa tartan waa competition contestant marka waa competitor qofka tartanka ka qayb qaadanayo tartama yes cashka intaas ayuu ka yahay keep learning and